waa kaymo jiq ah oo joogta u cagaaran dhirtoo jaad bajaada iyo cimilo goor kasta qabow jawgu aad iyo aad buu qabow yahay waa jawi aan sheeko lagu warin karin inaad shaahid u aragto mooyee waa halkii uu ku luuqaynayay cabdi tahliil warsame balallayda duushiyo shimbiraha ka baaqa kuutumaaya baanko furi kugu bariidine beertan weyn iga dambaysa waa qaad ama jaad hadba sidaa u taqaan dhirtaa ceeryaamada ku xiran tahay kulligeed waa qaad geedkan jiridda weyn waad arkaysaa waxa weeyaan waa qaadkii oo fresh ah ilaa iyo inta ishaadu ka arki karayso ceeryaama ku xiran waxa weeyaan halkan aan dhex taaganahay waa beertii qaadka afarta koona dhirtii qaadka iga xigta sidoo kale waxaa ku beeran liin baa ku beeran oo geedkaasi waa liin dhirtan iga dambaysa waa saytuun kuwan dhankayga bidix waa liintii dhankaas sii jeeda iyadana waxaa ku beeran dhir kale oo iyaguna geedweyn ah ceeryaama ku xiran oo waa galabnimo hadda saacadda waa 3 meelaha galabnimo laakiin waxa lama arki karayo intan beerta dhexdeeda un baan arkaa wax kale ma arko sababtuna waa cimiladu aad iyo aad u qabow meeshani lagama sheekayn karo quruxdeeda tani waa liima beelmadii tana waa baydarintii noocyo kale oo badanna way ku yaalin bunkii baa ku yaal saytuuntii baa ku taal afakaadhadii baa ku beeran wax aan meeshaan ka bixin haba yaraatee ma jirto geedkan aan dhinac taaganahay waa sonkor deegaanka calmadow wax aan ka bixin male sokortan dhowaan baa lagu talaalay halkan waxaa la ogaaday inay bixi karto dabeedna tijaabadii la sameeyey waxa ka soo baxay geedkan iyo geedo kale oo badan halkan waxaa ka bixi kara sonkortii bateetadii oo halkan iyadu ku beeran saytuunkii oo nooc walba leh yacni calmadow wax walba oo sidaa loogu ridaa way soo baxayaan halkan aan dhex joogo waa beerta bunka deegaanka markad dhirtan iga dambaysa gebi ahaanteed waa dhirta bunka ama kafeega hadda waa xilligii uu dhalayay ama uu miraha bixinayay beerta halkan aan taagnahay beertu ka bilaabataa ilaa qaybtaa iga dambaysa waxaa ku beeran bun ama kafee waa deegaanka keliya ee uu bunku ama kafee uu ka baxo waxaa ila jooga xuseen daahir jaamac oo ka mid ah dadka beeralayda ay halkan ku dhaqan bunka waa la beeray taariikh aan dhoweyn baa la beeray adigu xisaab 40 sano meelahaasa waa ku yaalay deegaanka waana kan kafeega laga sameeyo badanaa Soomaalida dibadda loo keen jiray ma aaminsanayn inuu dalka ka baxo laakiin waan beernay wuuna baxay anu waxaan dhashay isagoo ku yaalo oo abayaasha ayaa beeray waxa weeye waa geed aad u faa'iido badan haddii laga dhiganayo kafee iyo hadda waxaan samaynaa waan gurnaa waan iibinaa haddana dadku Soomaalida kama dhaadhacsana inuu yahay bunkii dalkooda ka soo baxay laakiin waxay u gataan inuu yahay bun laga keenay dibadaha ama dalal kale dalkiinu ku yaalaa waxaan idin leenahay siirkii iyo wax kasta anaga idin la garab taagan beerta waxa weeye dalku ka baxayaa